السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن بهذا سبورتس كوالي سلامي وصاحب فينا تيم وينه. ما أنت هلكم عربا إن عن كفر قيو مثلا السادة ده أكيد كل مرة أسبوع على عيار هو وين. محاكم بدا كلهم كالكلاسيكو سوبر كاب فاينل لعيار دونو ما أنت أحدها. sidoo kaleeto waxaa jirto ciyaar aad iyo aad loo xiiseynayo oo galabta soo galayso Manchester Derby u dhaxayso Manchester United iyo Manchester City laguna ciyaari doono garoonka Old Trafford. sidoo kaleeto waxaa jirto kulan kaleeto aad iyo aad loo xiiseynayo asagana Arsenal iyo Tottenham oo la ciyaari doono maalinta xadda laguna ciyaari doono garoonka Tottenham. marka ciyaarahaas aan rabaa inaan falanqayn ka dhiibto sidoo kaleeto aan saadaashayda ka dhiibta waa maasantiin dhamaantiin marka hore waxaan ka codsanayna inaan muuqaalkan like gareyso aadna soo follow gareyso waa maasanta haddii aan ku hormaro kulanka maanta la ciyaarayo Manchester United iyo Manchester City ay wada ciyaarayaan garoonka Old Trafford lagu ciyaarayo haddii aan ka bilaabo labadaas kooxood formkoodii kulamada dambeeyay aan fiiriyo Manchester United haddii aan dhankeeda usii janjeero aan fiiriyo Man United kulamadii u dambeeyay aad iyo aad koox waxay ahayd inay horyaalka u tartanto ay ka go'an tahay sidoo kaleeto waxay ahayd koox la dhihi karo waa ay qaadi kartaa horyaalka Premier League sidoo kaleeto ciyaaryahanka loo yaqaan Rashford aad iyo aad kulamadii u dambeeyay ciyaar aan caadi ahayn soo bandhigay oo walow horyaalkii bilowgiisa uu ahay ciyaaryahan lazy haddana kulamada u dambeeyay waa ismuujiyay sidoo kaleeto macalinka Erik ten Hag ayaa aad iyo aad u amaanay ninkaas haddii aan macalinka Erik ten Hag aan u gudbo dhankiisa iyo falsafadiisa iyo line-upka haddii aan u gudbo kulamadii u dambeysay aad iyo aad ay isku aaday falsafadiisa ciyaareed iyo line-upka waxaan soo xasuusanayaa Ajax waagii uu tagay jiray siduu ahay iyo hadda deertaan siduu u yahay waa sin macalin aad iyo aad u qiimo badan oo aan isdhihi karo Man United koobo badan ayuu kula guuleysanayaa ayuu leeyahay maadaama ninkan ciyaartooyda qaarowga misana ciyaartooyga duqooway waa iska fadhiisiyay Cristiano Ronaldo ayaa lagu xasuustaa in Manchester United uu keedka geliyay waana go'aan geesinimo leh aan isdhihi karaa ciyaartooyda yaryarka teenager oo aad iyo aad waxaa waay neef badan haayo ayuu waqti si marka Erik ten Hag falsafadaas iyo line-upkaas iyo ciyaartooyda waa isku aadistay Man United way ka go'an tahay ciyaartooydeeda inay koobo badan ay kula guuleystaan macalinkan dhanka Man United marka halkaas aan ugu gudbaynaa falanqeynta haddii aan usii gudubno saadaasha usoo noqonaynaa haddii aan u gudubno dhanka Pep Guardiola kulankii u dambeeyay Premier League aan ka hadlayaa sidoo kaleeto kulankii u dambeeyay Carling Cup la ciyaarayeen Southampton oo 2-0 loogu badiyay kulankii u dambeeyay Premier League ay ciyaarayeen Guardiola waxaad dareemi kartaan ciyaartooy aan isqaadanaynin inuu isku boos safaayay sida laba duo oo laba difaac oo garabka midig ka ciyaaro Kyle Walker iyo Joe Cancelo ayuu labada garab saaray kulanka Manchester United marka Pep Guardiola kulamada waaweynka inuu cabsado ayay mar walba lagu xantaa waayo laba ciyaartooy oo daafac ka dheelo haddii midna number 11 uu safo midna uu safo numberka labaad ciyaarta marka waxaad ka dareemi kartaan Pep Guardiola badan waa cabsada kulankana waxa waaye kulan derby Manchester United ayaa soo dhawaatay oo haddii galabta ay badiso kaalinta kala bixi doonto Manchester City marka Manchester City waxa waaye galabta waa loo baqaa sidoo kaleeto haddii aan micnaha aniga saadaashayda aan u gudbo kulankan marka waxa adkaan doonto kooxda Manchester United oo ku adkaani doonto 2-1 Man United ayaa ku adkaan doonto 2-1 Man United form fiican ay ku jirtaa Manchester City inay kaalinta kala baxday rabtaa kulankii u dambeeyay in ay Manchester United dhagaha loogu soo dhuftay 6-3 ayay ka xanaaqsan tahay Man United waa ay badinaysaa galabta waxayna ku badin doontaa 2-1 haddii aan gudbo kulanka El Clasico la ciyaari doono maalinta axadda kulankaas waxyaabo weyn kama baxsanayo saadaashaydana
واسكا فلوتهاي ان هدي اسكو فيريا marka dhankaas iyo Real Madrid iyo Barcelona ان برشلونه هذا كارنت كوات ay kaga jirtaa La Liga en form fiican ay ku jirtaa sidoo kale Real Madrid form fiican ay ku jirtaa marka labada kooxood form fiican ay ku jiraan marka hadii aan isdhaho en final markii la imaado oo isdhaho macnaha in labadan kooxood ya taariikh u lahaan jiray finaalka qaadashadiisa badanaya qaadi jiray hadii aan isdhaano Real Madrid ayaa u guuleysan jirtay badanaa finaalaha ay isku imaadaan Real Madrid iyo Barcelona marka waxaan isdhihi karaa marka aniga aan Real Madrid ayaa badinayso oo ku badini doonto 3-1 Barcelona form fiican ay ku jirtaa oo ognahay qadkeeda dhexe waa wanaagsan yahay daafacyada waa wanaagsan yihiin Real Madrid sidoo kaleeto marka mar walba fursadda waxaan siin doonaa Real Madrid oo ku badini doonto 3-1 marka hadii aan u gudbo sidoo kaleeto Arsenal iyo hadii aan u gudbo Tottenham Arsenal iyo Tottenham waxa way badana waxa adkaani jiray hadii taariikhda dib loo noqdo Arsenal sidoo kaleeto Arsenal sanadkan form fiican ay ku jirtaa waa hogaamiyaasha Premier League Tottenham form meel dhaxal ay ku jirtaa marka kulankaas kuma sii dheeraanayo oo waxyaabo badan kama sii dhahayo walow garoonka Tottenham lagu ciyaarayo Arsenal ayaa waxay ku badini doontaa 3-0 oo ay kaga badini doonto Tottenham garoonkeeda Arsenal hogaanka ay sii dheersan doontaa Manchester City waa laga badin doonaa 2-1 lagu badin doonaa sidoo kaleeto kulanka El Clasico-da ayadana waxaa adkaani doonto Real Madrid oo ku adkaani doonto 3-1 marka waa maasantiin dhamaantiin muuqaalkan share gareey